shir ay golayaasha maamulka Khaatumo ku yeesheen magaalada Buuhoodle ayay ku qaadaceen war dhawaan ay soo saareen siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn kuwaas oo soo jeediyay in la hakiyo wada hadallada Khaatumo iyo Somaliland inta ay socoto doorashada Soomaaliya waxayna maamulka Khaatumo sheegeen in marna aysan hakin doonin wada hadalka Somaliland ay kula jiraan iyagoo inta ku daray in doorashada xamar iyagu aysan wax laga kulahayn wasiirka warfaafinta maamulka Khaatumo Axmed Xaaji Cali Cabdilaahi iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamuud Sheekh Cumar ayaa ugu horeen ka hadlay shirka halkan maanta waxa isugu yimi oo ay bishu 26 tahay labada gole ee Khaatumo ee baarlamaan iyo xukuumad gudidii joogtada oo ku dhameystiran xubno siyaado oo baarlamaanka ah shirkan oo aanu kaga hadlaynay warqad baadi ah oo 22kii bisha koox isku magacawday oo self styled ah iyagu ismagacaabay inay yihiin guurti Khaatumo waraaq baadi ah oo ay si cad oo qayaxan ugu qoreen arrimo meel ka dhac ka maamul goboleedka Khaatumo distoorkiisa iyo xukuumaddiisa yaanu si cad u aragnay una akhrinay una fahanay una diidnay waxaan ku qoranayna waa waxaan la aqbali karin oo distoorka maamulka Khaatumo aan meel ka soo galin warqadda iyo xubnaha qorayba waa cambaaraynayna dadweynaha reer Khaatumana waxaan fahansiinaynaa annagoo labadii golo ah oo haddii alla idmo madaxweynaha iyo gudoomiyuhu ay iga dambeyn doonaan hadalka nuxurkiisa waxaan furitaan ahaan ku furayaa kuna baraarujinayaa dadka reer Khaatumo warqad kasta oo lagu kala dilayo laguna kala dhantaalayo distoorkooda iyo sharcigooda iyo maamul goboleedkooda inay meel uga soo wada jeestaan cadawgana ka dibadda waxaa ka daran ka gudaha cid wixii ay hore u soo qabatayba ha soo qabato waxaan cambaaraynaynaa qoraalka baadida ah ee la soo dhigay midyaha 22kii bisha haddaanu nahay reer Khaatumo madaxtooyada shirkan maanta ka qabsoomay oo uu jeergareynaya madaxweynuhu waxaanu kaga gaadhnay go'aamada soo socda waxaana si buuxda u akhriyay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamuud Sheekh Cumar iyo madaxweynaha haddii alla idmo anigu furitaankii uun baan ahaa wabilaahi tawfiiq xubnahaas kama mid aha saddexda gole ee xukuumadda kama mid aha waxa ay isticmaalayaan waa awood aanay lahayn madaxweynaha maamulka Khaatumo ayaa qaarkood u magacaabay inay yihiin gudida wada xaajoodka sidaa darteed iyadoo oo marka la tixraaco shirkii ka dhacay Nairobi June July 19 sanadkii dhaweyd ay ku soo saareen go'aamo oo la arki karo iyo go'aamadan imika ay soo saareen ee baaqa ah labaduba waa kuwo sheeganaya ama tilmaamaya awood ka sarreysa maamulka Khaatumo oo ku takrifal awoodeed ah dastuurkii Khaatumo oo ka ahna aan waafaqsanayn sidaa darteed iyadoo oo waliba aan wada hadal badan iyo xaajo badan iyo muwaafaqo badan ka dhex raadiyay oo aan in badan wada xiriireynay noona suuro gali weyday inay innaba wax rajo ah ama wax hadal ah ka ogolaadaan ee ay ku soconayaan barnaamij iyo hadaf looga soo dhisay xamar maamulada xamar ee isbedelaya oo malaha dee rajo laga qabo inta aanu maamulku dhismayo xilalba qaarkii loo dhiibayay yaan Somaliland iyo Khaatumo wada hadlin wada hadalka iyagu wuu soconayaa wuxuu ku soconayaa sidii loogu talagalay haddii ilaahay idankiisa ay ku noqoto xaaladda xamarna waxaa maanta nooga dhiifoon oo aanu uga nugul lahay kuwa dhulka yagana haysta dhibaataduna naga dhaxayso oo aanu ka wada hadallo laakiin ma noqonayno kuwo muxuu ahaa xaaladda xamar mustaqbalkeeda ama aayaheeda dambe ummadda Soomaaliyeed baanu de kala midnahay laakiin tan annaga iyo maamulka noo dhaxaysa ee wada hadalka ah waa mid duruufo gaar ah oo annaga noo dhaxeeyo oo maamuladii hore Soomaaliyeed ay wax ka qaban waayeen hadda waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa oo ay ujeedadiisu tahay maamulka nimanka maamulka isku tilmaamaya ee magacyada kala nooc sheeganaya ee ahaa kuwii aanu ugu rajada fiicnayn ama aanu uguba kalsoonida ugu badan ka haynay ujeedooyinka ay u socdaan haddana aad moodo inay qandaraas ku soo qaateen sidii loo burburin lahaa maamulka Khaatumo waxaanu halkan ka cadeynaynaa warqadda ay soo saareen inay sharci darro tahay
dastuurkii iyo jiritaankii maamulka khaatumana ay ka hor imanayso aanaan aqbalahayn aqbali doonin aanu ku adkaysan doono tii aanu u soo halgannay ee ay iyaguba ka midka ahaayeen ee ay ku kalsooni qabeen waxa maanta jiidhee ka hor yimidna ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu caafimaad ka siiyo caafimaad sareecana inuu ka siiyo oo aanu dantayada tii aanu u soo halgannay ee dayaca iyo dhibaatada badan u qabnay ilaahay inuusan ka balfinne ilaahay uu ku soo duwo oo dawgooda iyo ku habboonaashahooda iyo dadnimadooda ay ku qiimeeyaan waxaan ummadda reer khaatumo u sheegaynaa dadka maamul baa inoo dhisan dastuur buu leeyahay xeer buu leeyahay golayaal buu leeyahay waajibaadyo shaqay kale leeyihiin ma aha in qof waliba marka uu doono waxa uu doono uu kaga hadlo waxaa muhima xubnaha maanta khaatumo jooga muddo gaaban baaba u hadhay oo aan dheerayn ummadda reer khaatumo unbaa doorasho ku geli doonta kii ku soo baxaa lagula shaqayn doonaa in lagu ixtiraamo oo iyada oo wixii tala ah iyo wixii arrin ah iyo wixii xaajo ah ee ummadda khaatumo u dan ah cid walba laga dhegaysan doono oo aanu diyaar u nahay laakiin waxaan doonaynaa in dadku ay kala fahmaan war maamulkan yaree dhisan haba awood yaraado laakiin waa structure iyo haykal inoo dhisan oo nidaam ah oo dastuurkiisii leh oo xeerarkiisii leh adeerow wixii lagu burburinayo cidna uga dulqaadan mayno cidna ku karaamo siin mayno cidna ku sharfi mayno waxaan leeyahay nimankaa hadlay ee qoraalkaa soo saaray waa mid sharci darro ah waa mid aan ahayn dastuurka waafaqsanayn waa midaan jiritaanka khaatumo waa midaan ta caalamkaba dee ahayn maamul dhan oo dhisanoo dusha laga amrayo laleeyahay caynkaa iyo caynkaa iyo cayn dee adeer waxaaba ka habboonayd waxay u baahan yihin inay annaga nagala soo hadlaan oo aanu kala xidhiidhno oo aanu ka daawaysanno oo wixii daw ahee ay runtu noqoto markaanu feker isdhaafsanno ay muxuu ahaa lagu dhaqmo yaa muhima laakiin in qof waliba meel fadhiisto geed hoosti intu fadhiisto wuxuu doono ku hadlo ma aqbalayno ma yeelayno mana qaadan doonno ummadda reer khaatumana waxaan leenahay war yaan been laydiin sheegin oo riwaayad laysu dhigin haddii ay daacad ka tahay oo ay run waxa ay sheegayaan yihiin gole soo fadhiisiya ha lagu wada hadlo inta qodobe ay sheegayaan iyo waxay awoodu leeyihiin iyo waxa aanay u lahayn war waxa kan beenta ahee la akriyayo lacag baa la qaadanaya meel heblaha dhulkii lagu soo saxeexaya shalay baanu shir gallay nairobi waxaanu tagnay addis ababa waxay ka mid yihiin xubno saddexa oo ku jira hadda joogaa oo raggaa hadlaya ah ama warqadda soo qoray waxay nala joogeen meesha shirkaanu wada gallay war qodobada annagaa diyaarsanay wafdidayadii meesha joogtay baa diyaarsatay go-aanka annagaa qaadanay cidinaguma khasbahayn cali khaliif feker keliya oo qodob ah wallaahi kuma lahayn tii aan go-aankii aanu qaadanay mid nagagama hor iman war riwaayadda laysu dhigayo hebel baa dalka iibinaya heblaaya caynkaasa war ma iibinayaan idinkaa iib kale ku jira war idinkaa saylo taagan war idinkaa xitaa kursi keliya ku doonaya wasiir ku doonaya wasiir weliba waa ka maaliyadda war may war adeerow armaa kursigana weydaan khaatumana baabi'isaan oo belaayaba halkaa ka dhacdaa ummadda dhanse masiirkeeda ma qof baa loo iibinaya o saylad loo geynaya war damiirku ha shaqeeyo dadnimadu ha shaqayso ha la kala xishoodo taariikhda ummadda wuxuun baa ka hadhi doona waxaa la meel walba lala wareegaya cali baa na iibinaya oo meel lala maraya macruur baa dadku war dadku wixii somalilan waa la wada hadlayaa markaad hadlayseen goobjoogga ku ahaydeen aad baan idinku ammaanayaa sidii ama aad uga hadlayseen ama ay arinteennu ay ahayd belaayada idin jiidhay markii aad ka timaadeen maweydigii shirarka qabanaye siday ahayd uga hadlaye amarka idin jiidha anigu garan maayo haddana waxa weeye go-aanka warqadda ay soo saareen waxaanu ka soo saaray go-aan cad oo aanu soo gelinayno websaydyada iyo warbaahinta tii hore ay soo mariyeen yaanu annaguna marinaynaa haddii waxaa la yidhi ninku halkaa kaa gowraco halkaasaa laga gowraca waxba isula hari mayno haddii aad ka xishoon weydeen annaada ka xishoon mayno ummadda masiirkeedana inaanu difaacno bacad baabaanuu fadhinaa
wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ugu dambayna waxaa halkaas ka hadlay madaxweynaha maamulka khaatumo Dr. Cali Khaliif Galaydh oo sheegay in xubnaha siyaasiyiinta ah ee dhowaan warqadda warbaahinta ku daabacay aysan cidna metelin wada hadaladuna sii socon doonaan siduu hadalka u dhigay isagoo intaa raaciyay in khaatumo aysan waxba ka khusayn doorashada xamar ka socota. nimanka waraaqda u soo gudbiyey saxaafadda bisha 22-keedii runtii waxaanan filayn bay ahayd niman ugu magac dheer khaatumo sharafta ugu badan iyo qadarinta ugu badanna loo hayo oo dadkoodu u hayaan aniguna gaar ahaan aanu in badan hadda 6-7 sano intaanba shirarka la isugu iman xitaa kii London aanu howlahan ku soo wada jiray aad iyo aad bay ii dhibaysaa maanta waxaan anigu islahaa ragga 2-3 ka mid ah haddii laygu yidhaaho oo aanan de iyadoo qoran aanan kuba arag meesha warkaas waa war la abuurayo waa been qofka ibni aadanka ah haddii war lagaaga sheego waxaa aqoonta aad u leedahay yaad marba aad shaybaadhka u geysaa oo war waxaanu wax hebel ka suurtooba ma yahay anigu waa yaabanahay runtii warka meesha ka soo baxayna war iyo kana dan u ah ma aha sharaftooda iyo ummaddan waxay u yihiin iyo hanka loo hayana mid u dhigma maaha waa ka xunnahay waa diidannahay way ku khaldan yihiin waxaa halkaa ku yaallana ee soo jeedinba maaha waa go-aanno ay gaadheen iyaku go-aanada ay gaadheen awooddaa meeshay ka keeneen annaku dastuurka kuma hayno dhaqan siyaasadeed oo aanu isla ognahay oo isku aaminayna kuma salaysna waxa kan xagala geel wax la qariyo gunti la geliye ka weyn war arrintan ummad baa u dhimatay ummad baa hadda diyaar u ana in ay dadka Soomaalida la mid noqoto hadday xitaa ku kalifto in badan oo iyaga inay u dhintaanna diyaar waa inay u dhintaan war annaka door moodnay iyakaana talada lagu gaadhay kamid ahaa in meeshii danteenu gashaba in lala hadlo wax noo diyaaro ogol inay nala hadlaan annagu Soomaaliland baanu haynaa waxaanu ka badin weyne oo markan aanu u aragnay inaanu fursadaas uga faa'iideen hadda macnaheedu ma aha wada hadalka Soomaaliland lala galay marnaba ma aanan oran waa heshiinay war ma aanan heshiin wada hadal baa bilow waliba abaanu ku jiraa war cidda hadda waxaa la yidhi qaalin yar oo markaa la jaro barayo caloosha biyaha calooshiisa ku jira iyo ka didaa waray nimankan hawsha intaa la ku kacay ee inqilaabka ah ee ay rabaan maamulkan yar iyo waxan yaraanu leenahay ee loo dhintay ee loo rafaaday inay burburiyaan kama yeelayno garowshiyana kuma siinayno waxay annaka taladeedu ku soo ururaysaa wada hadaladayada waa wadaynaa cidna odhan karta ma yeeli kartaanoo awood ka baxsan labadan gole 3 gole khaatumana ma jirto nimankaa islaameed meesha ay ka keeneen awood sheegashada iyakaa ka jawaabaya annakuse hawshayadu ha cuslaato naftayadana aanu khatar u gelinayno war cidaanu ku khaadir dhowraynaana ma ay jirto wada hadalladeedina waa wadanaynaa iyaka 3 nin ee ka midka ahaa ee ku qoraa wafdiga 7 ah ee sababa tagayna ee sida noo wiiqay ee boqno gooynaya maanta wax ka dambeeya khaatumo ma matelayaan shir khaatumo leedahay ama Soomaaliland leedahay meel kale aanu leelahayna nama matelayaan waxaanu annagu leenahay oo dadka iyaga faraynaa warwarkan iyo beentan iyo xaalad abuurkan la wado war aniga siilaan iyo kuma heshiin inaanu Djibouti isugu tagno
oo heshiis qoran baaba la yidhi oo ay qaarkood ku doodayaan annakaaba qodobadiisii hayna war waa been war aniyo siilaan iyo jabuuti kuma ballansanin war heshiis qoran war heshiis aan ahayn kaa guddiyada loo diraa ee ay kula galaan ee ay iyadoo la wada fadhiyo loo dhan yahay heshiis aan ahayn oo anigu ama qof kale oo khaatimo uu saxeexayaana ma uu jiro war dadku dad waaweyn ha iska dhigeen war da' waaweyn iyo xilkasnimo waxan ay sheegayaan iyo beentan ay sheegayaan iyo waxaan makhaayadaha lagaga hadlo war waa uga hanweyneyn war lacag 2 milyan iyo 5 milyan oo jabuuti taalla war waa ka qatan yihiin war ragga halkaa soo fadhiya hadda waxaa muuqata oo dhab ah war qaarkood xitaa inayan saaka soo quraacan war duhurkii hadday koob shaah ay cabbaan war ninka markaa u quudhaya dadka sacrifice-kaa samaynaya ee intaa caruurtoodii iyo reerahoodii iyo noloshoodii caadiga ah ay ku jireen uga yimi ninka taa u quudhayaa war ehel uma aha war ibni aadanimaday ka baxsanta waroy nimankaasu intooda badani yurub iyo maraykan bay joogaan war maamulkan hadda dhisan ee khaatuma iyo kuma dhisin war ummadda dhulkan joogtaa dhisatay war dastuurkaa iyo kaa qortay war saddexda gole 2 golo oo ka mid ah war muddadii looguba talagalay baaba dhammaada sanad iyo badh ama sanad baaba u hadhay war cidda xukun rabtaa intay iyaka oo Minneapolis dhex fadhida ku haliili lahaayeen hadday xukunka rabaan war ha ka howlgaleen war tartan ha u galeen war si sharci ku dhisan ha ugu dadaaleen hankooda siyaasadood ha yeesheen laakiin war hoy haddiiba aada Maraykan joogtid war hoy dadku term bay leeyihiin baa la doortaa war 4 sano ee la doortay hadda waxay u dhowdahay 2 sano iyo waxaan u malaynayaa ugu yaraan 6-7 bilood waxa u hadhayba waa sanad iyo dhowr bilood war ninkan doonaya ee han siyaasadeed lahow war ha ku meehanaabin Minneapolis war u kaalay war dadka shacabka ah ee tabaalaysan ee abaartu hayso ee colaad dhan walba ay maanta ka hayso war adiguna ha ku jeestayne oo intaad soo toostid oo gurigaaga ka soo toostid telefoon qabsatid ha odhanin anaa u talinaya anaa kala diraya baarlamaanka jira anaa kala diraya maamulka minayna laka haadaa war xaggaad awooddaa ka heshay war adigu kumaa tahay war adigu idinku yaa tihiin war ma ummaddaa dhan ee dhulka ku nool ee howlaha iyo dhibaatada iyo culayska war dadka intan kaga dhimatay waxaan u malaynayaa inayan badhaadin war magaaladan Buuhoodle aanu hadda joognay aan ka hadlayo waxaan 20 kilomitir dhammayn yaa waxa yaala 100 meyd yaa ku dhintoo ku xabaalan 100 meyd war dadku xis inay yeeshaan oo xurmo yeeshaan yaa loo baahan yahay waxaan anigu hadalkayga ku soo koobayaa war ku dadaalay hadda bisha 22keedii baa warkan soo baxay maantana waa 26 war waxaanu isniri waxaan ku degdegina war wax hubiya war markii hore naga rumaysa waxaanu u qaadanay war beena oo xaalad abuura ilaa la hadlay website-ka uu ka soo baxay oo ay noo xaqiijiyeen Cabdirashiid Macallin Faarax baa noo soo gudbiyay ma aanan rumaysan Cabdirashiid Macallin Faarax annagu marka hore shaki baaba naga galay war waxaanu leenahay war hooy habar fadhida lagdina wax uga fudud war ciddii hadda rabta inay ururiso mucaaradka khaatumo ururiso war firingar raadkoodii baa la hayaa war cidday la hadleen wax allaala wixii khaatumo ka soo horjeeday yay xidhi intayan waraaqdaba daabicin yay la lahaayeen waxaan leeyahay war hooy intaadna yeesheen ee idinku is yeesheen nagu filan intanaaba inaga badan waxaanu leenahay war hooy waxana laga waantoobo
ummaddan xamar uma joojinayso war doorashooyinka xamar ka socdaa nama khuseeyaan war nin wasiirnimo ka helaa meeshaa ka rabaa war waxa iyagii oo dhan uma daadinayno war waxa iyaga uma hakinayno war wasiirnimada hebelow uu rabo mudnaan kama siinayno dhimashada dadka yaga haddii aan ilaahay isagaa qaniye uusan iyo raxmaad siin war 2 bilood 3 bilood oo dambe oo jiilaala war waxaanu ka talinaynaa ummadda meeshii geed dheer iyo mid gaaba inta loo fulo loogu raadin lahaa war qaar iyaga ka midihi adreesyo iyo waaba noo soo dirdireen wixii aanu ka qaban karno ee meelaha xitaa ay sheegayaan inaanu albaabada garaano war diyaar baanu u nahay waana u sheegnay laakiin war maanta uma baahnin inaku inaynu isku soo noqonno oo tumaati iskala daalle war dadka badbaadiye war waxaan yaree hadda cinwaanka oo adreeska u ah war ilaah baan idinku dhaariyay ummadda ha ka burburinina war haddaad rabtaan oo aad wax u rabtaan inaad noqotaan war ka howlgala war kaalaya war hallaydin barto hallaydin arko waxaad tihiin laakiin anigoo halkaa jooga yaan anigu go-aan ka qaatay xukunkii la wareegay dee kaa yeeli mayno wax allaale si allaale sidaanu kuula dagaalami karnana waa kuula dagaalamaynaa idinkamana ogolin shacabka iyo khaatumo ummadduna idinka ogolaan mayso intaad ururinaysaan iyo iimaylada aad isu gudbinaysaan idinka iyo cidda ugu fog khaatumo dagaalankeeda cabdirashiidow iimayladaad u dirtay waa haynaa koobiskoodii baanu haynaa waxaan odhan lahayn waray waayeel waa inakaan isyeelyeelin war ibni aadan baynaho qofku waa khaldami karaa war waad khaldanteene haddaad ka soo noqonaysaan war annaku waa idinku soo dhowaynaynaa laakiin sida hadda muuqata waxaan u malaynayaa inayba ay kaba dartay waa la tolay oloshay dee bal waa arki doonaa meeshay idin geyso iyo khaatumo intaad yeeshaan taariikhday gelaysaa laydinkana cafiyi maayo waxaadna noqonaysaan tuka baalcad baad ummaddan ka dhex noqonaysaan beentan aad wareejinaysaan iyo cali khaliif baa nagadaya war idinku armaaba bilaash iyadoo xitaa aan $10 xitaa aydan ku helin cadowga khaatumo waxa ugu weyn uu rabo waa inuu khaatumo burburiyo war iyadan $10 lagu siin war ad maad hadda noqonaysaa nabarka lagu dhufanayo ka ku dhufanaya inaad adiga noqoto war hadhow maxaad ku sharxi doontaa war beentan aad wadaan hadhuub idinma buuxinayso waxaan warkayga ku soo koobayaa shacabka khaatumo war bal xubiya war annaku waxaanu diyaarna u nahay shirkay Nairobi ku qabteen iyo go'aanaday markaana ka soo saareen iyo hadda go'aanadan ay soo saareen war waa si qayaxan awood ugu sheeganayaan oo aadba moodo 3 gole khaatumo ay leedahay baarlamaanka iyo golaha sare dhaqanka iyo xukuumadda awood kaba sareysa iyo guddi kaba sareysa hadda iyaga is doortay hadda iyaga magaca la baxay hadda meel maamulka khaatumo meel ay ka soo galaan ma jirto haddaba bal nimanka awoodu ee aad moodo shaydaanku inuu halka bigil ugu afuufayo shacabka waxaan leenahay war bal waxa annaku waa soo wada gelinaynaa websites waa soo gelinaynaa saxaafadda go'aanadoodii hore ee Nairobi iyo kana meel aynu joognaba in lagu akhriyo laga faalloodo kaayagan aanu soo saarnay ee hadda saxaafadda u dhiibayna waa ka maagnay inaanu war saxaafadda isu marino waana lagu kalifi isna saasaanu ku soo gelinaynaa shacabku iyo khaatumo inaynu gu filan oo dhibihina waa soo maray in ka badan oo dhibihina wayna hortaallaa sida quraynu kaga gudbaynaana waa in aynu mid ahaano waa inaynu wada tashi mar walba ku soo dhowaano warhoy annaku taasaanu diyaar u nahay
taasaanu annaku diyaar u nahay isimada hawsheeda duulimaad kuma nihin isimadu waa golaha sare ee dhaqanka howlaha dhaqankay leeyihiin laakiin sida dastuurku tilmaamayo howlahoodana waa ku cadyihiin ta maamulka ee baarlamaankuna waa ku cadyahay ta xukuumaddana waa ku caddahay annaku maamul haddaanu nahay ama labada gole nahay war kuma haysano isimada shaqadooda war annaku waxaanu diyaar u nahay isima inoo midaysan oo inoo jiraa ma ay jiraane war waa aragnaayoo tallaabada ugu horeeyay qaadi doonaan waxa weeye haddayanba qaadin isimada inay yidhaahaan sharci darrada tan iyo xukmaroorsigan nagu taageera diyaar baanu u nahay meeshay joogaanba inaan ugu tagno hadda waaba dhow yihiinoo intii halkaa ku shirshiraysa higlada tan kale ee higla ka dhac yayba joogaan bal annaku diyaar baanu u nahay inaanu u tagno inaanu waxaan kor iyo hoosba uga wada hadalno war waxaanu gidigeenba inaga weyn war maamulkan khaatumo iyo cinwaanka yaraynu leenahay war looguma degdegi karo in la burburiyo isimadana diyaar baanu u nahay wax allaala wixii khaatumo ah ururadeeda ururka ama muxuu ahaa ururada bulshada culamaa udiinka war mid walba annaku diyaar baanu u nahay inaanu tala wadaag ku ahaano maamulka iyaguna isagu ku dhisan yahay iyagaanu aragnaa dantayada shacabkaana leh hawshan iyakaa leh iyakaana doortay iyakaa ku caana shubay isimada iyagaa baarlamaanka iyo xukuumaddaba doortay iyakaa awoodda kama dambaysta a leh waroy haddii naloo arko inaanu khaldannahay waa isu diyaarinaynaa sanadkan noo hadhay howlaha inaanu ku dhammaystirno shirkaana waa qabanaynaa dee nimankanu haddayba nagu simaan ilaa hadda inqilaab weeye waxay wadaane waxayse iyagoo maraykan jooga oo minneapolis dhex jooga siday maamulkan ku burburinayaan hadda xamar iyo puntland baa uga dambeeya waroy warka waa haynaa war annaku beentay sheegayaan ma aanu sheegayno intaasaan anna kaga baxayaa wabilaahi towfiiq waa mahadsantii